بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ودوكسيجيني سريالهو سكندري سكول فصل كوباد دوكسيجا سرع ماددو ولغة العربية معلمكنا وعد فتح اسماعيل محمد مع الأربعة مقعير كسور وادا دوكسيجا سريالهو سكندري سكول أرداي مادة أفك عربية فصل كوباد دوكسيجا سرع وحين مريني عتبك صدحات وكور رمي قواعده أما نحوها waxaanu dhiganaynaa الدرس الأول 10 koobaad oo ku saabsan المفعول المطلق mafcuulkii la sii daayay inta aanaynu 10ka guda gelin waxaanu samaynaynaa gooldhig ku saabsan 10ka marka koowaad ardayay waxaanu soo dhiganay oo in badan aynu soo marnay afka carabiga weeraha la adeegsadaa inay laba qaybood u qaybsamaan qaybta koowaad jumla ismiya word ismiya la yiraahdo oo ka kooban laba shay mubtada iyo khabar laba ismi ka kooban tahay ismiga koobaad waxa la yiraahdaa mubtada waa ismiga lagu bilowday iyo ismiga labaad ee ka dambeeya oo la yiraahdo khabar saalis wuxuu noqonayaa zaydun qaa'imun zaydun zayd qaa'imun waa mid taagan weerda qaybta labaad waxay ahayd jumla ficliya waa weerd ka kooban ficil iyo waxyaabo ka dambeeya weerdaas waxay ka kooban tahay ficil oo falkii iyo dhacdadii iyo faacil oo falka cidii sameeyay iyo mafcuulun bihi waxa la yiraahdo oo falkaas cidii uu ku dul dhacay tusaale ahaan daraba zaydun rajulan ayatri daraba uu garaacay waa falkii zayduna waa falka cidii samaysay oo faacil baa la yiraahdaa rajulanna waa falkan cidii uu ku dul dhacay ee garaacan lagu sameeyay hadaba waxaynu nidhi jumlada ficliyada waxay ka kooban tahay ficil iyo faacil iyo mafcuul hadaba ficilka iyo faacilku markay dhacaan waxa jira waxyaabo la yiraahdo mafaaciil oo daba dhaca mafaaciil waxaynu naqaanaa oo kaliya mafcuulun bihi ama ka saacana oo in badan aad aragteen laakiin waxa jira afar kale oo iyagana mafcuul lagu tilmaamo waxyaabo kala duwan la raaciyo mafaaciishu waa shan san ku sheegay mafcuulun bihi in badan ayaad aragteen tusaalihiisuna waxa weeye daraba zaydun camran daraba uu garaacay zaydun ninka zayd lehda camran ereygan camran ayaa noqonaya mafcuulun bihi waa kii ficilkan garaacay oo ku dul dhacay kalabaad waxa la yiraahdaa mafcuulun mutlaq waa mafcuul la sii daayay mafcuulkan la sii daayay waa kaynu dhigan doonee ficil kasta laba shay buu ku tusiyaa ficil kasta wuxuu ku tusiyaa hadath oo dhacdo ah ama masdar iyo zaman xilli dhacdadaas ay dhacday tusaale ahaan haddaan dhahdo daraba wuu garaacay laba shay baan ka faa'iideysanaya ta koowaad waxa weeye garaac ta labaadna waxa weeye garaacaasi inuu dhacay waqti la soo dhaafay haddaba garaaca ayaa la yiraahdaa masdar ama hadath waana ka lagu tilmaamo mafcuulun mutlaq tusaalihiis wuxuu noqonayaa daraba wuu garaacay laba shay bay ku tusinaysaa garaaco dhacdadiya iyo garaacan waqti la soo dhaafay inuu dhacay zaydun zayd wax buu garaacay darban garaacitaan ama garaac waa dhacdadii kaana waxa la yiraahdaa mafcuulun mutlaq baa la yiraahdaa ka saxaad waxa la yiraahdaa mafcuulun fiihi mafcuulun waa kii la sameeyey fiihi dhexdiisa ficil kasta laba shay buu dhex dhacaa ficil kasta oo dhacaa laba shay buu dhex dhacaa in uu waqti dhex dhaco oo ficilkan samayntiisu ay waqti qaadatay iyo inuu ficilkani meel dhex dhaco oo meel lagu sameeyo marka mafcuulun fiihi waa kii la sameeyay dhexdiisa tusaalaha u fiirso waxaan ku yidhi darabtu waxaan garaacay zaydan zayd baan garaacay haye nahaaran maalin baan garaacay garaacaygani muxuu dhex dhacay wuxuu dhex dhacay maalin waxa la yiraahdaa ismu zamaan waye waxaan ku yidhi haddana darabtu waxaan garaacay zaydan zayd ayaan garaacay hunaa halkan baan ku garaacay hunaa halkana waa makaan waa meel ficilkan iyo falkan aan sameeyey wuxuu dhex dhacay halkan aan tilmaamay ayuu dhex dhacay kaasna waa zamaan weey marka mafcuulun fiihi waa kii dhexdiisa la sameeyey kaa dhexdiisa la sameynaya waa laba shay ficilkaagani inuu waqti dhex dhaco oo ismu zamaan la adeegsado iyo inuu meel dhex dhaco oo ismu makaan la adeegsado
كوانا وحليها مفعول فيه. ويه مفعول كأفراد ومفعول له بلع وحلي هذا مفعول له وكي إساق درادي لو سمي فعل كان يدعددني سببتي أدعدي بقدسية كان مصدر بالو أديك سده أما دعدد أيا لا أديك سده لكن دعددا لا أديك سنية فعل كلام معناها ومعناها فعل كوي كدوانته مفعول مطلقة مصدر كي دعدد لا أديك سنية وحي لمد أحد والله معناه أحد فعلك كان لكن معناها مكدوية تصالحك ضربت وحن قراعي زيدا زيد ما قراعي تأديبا إدبين درادت سببت أنو قراعي معي وين الإدبيو كانوا على مفعول له أما مفعول لأجله وكي درادي لو سمي أما مفعول من أجله وكافراد وله الرعي بين كترنا مفعول كافراد على مفعول معه كيلا تركي سلسمي فعل كاني مركو دعي وحكا أكدعي ميل oo markuu dhacay dhacdo kale iyaduna dhacayso ka dhacaysay naxu sida salaw fiirso maata zaydun zayd baa dhintay wa tuluuca ash-shamsi cadceedu markii ay soo baxaysay la jirkeeda dhimashadiisu waxay ag dhacday cadceedu markay soo baxaysay waxa filayna aad iyo aad u fahanteen intaas hor dhacay ahayd aan doonayay inaan ku fahansiiyo mafaaciisha casharkeena inuu gudubna hadaba المفعول ومفعول المطلق لا سيداي المفعول المطلق مفعول كلا سيداي المصدر ودعدده ها waxaan ku ficilku laba shay buu ku tusiyaa xadath oo dhacdo ah ama masdar iyo zaman dhacdadan xilliga ay dhacday daraba markaan idhaahdo wuu garaacay macnaheedu weey yadribu markaan idhaahdo wuu garaacayaa idrib markaan idhaahdana waxa weeye garaac daraba waxay ku tusinaysaa dhacdo iyo waqti la soo dhaafay wuu garaacay yadribu waxay ku tusinaysaa dhacdo iyo waqti taagan idrib markaan idhaahdana waxay ku tusinaysaa dhacdo iyo waqti soo socda haye haddaba dhacdada ayaa la yidhaahdaa masdar jalasa wuu fadhiistay fadhiisadka ayaa masdarkii noqonaya oo juluusa akala wuu cunay cunidda ayaa masdarkii noqonaysa oo akliya ma fahanti samica wuu maqlay maqalka oo samciya ayaa masdarkii noqonaysa marka u fiirso masdarku waa dhacdada ficilku uu ku tusinayo almasdaru masdarku المفعول مفعول كالمطلق لسي دايي حنا قنيا المصدر ودعدده المنصوب لنصبنيه اسماء مرفوعات هي منصوبات هي مجرورات بقيسميه مرفوعات waxa kamid aha faacilka mubtadaha iyo khabarka majruuraadkana waxa kamid ah ismiga xarafka lagu jaro iyo ka mudaafka lagu jaro waxyaabaha hore soo dhiganay kan laakiin waa mansuub marka carabiga waxa oranaysaa ismun mansuub ama masdarun mansuub المؤكد kaasoo adkeynaya licaamilihi caamilkiisa وفعل كان كهرية أيوم بأتكينيا وحوجينيا أو أمسه المبين وعدينيا لنوعه فعل كان النوع أو يحي توفيرس فعل كان كهرية نوع أو يحي أيو عدينيا أو أمسه عدده ترديس أيو عدينيا فعل كان تراد أو دعي أيو عدينيا هل واحد كفهم يسمى مفعول المطلق إنه صدح قيباد وقيب سمايو وككوباد ونقانيو المؤكد كي أتكينيا لعامله عامل كيس أي فعل كان كهرية waxaa jira wax la caamil iyo macmuul ficilka kale waa caamil waa kii shaqeynayay macmuul waa kii laga shaqeynayay ee lagu camal falay mithlu sida qawlihi ta'ala hadalku ilaahay yiri oo kale wa kallama Allahu ilaahay waa la hadlay Muusa nabi Muusa takliiman la hadlid takliim waa masdar ama waa dhacdo waxay adkeynaysaa maxay kallama oo ficila wa kallama Allahu ilaahay waa la hadlay والله الله محي نقونيسا دعدو iyo wax la soo dhaafay ila hadalka wax dhacay Muusa nabi Muusa la hadlay takliiman la hadlid marka takliiman waa masdar muakkid li'aamilihi waa masdar adkeynaya maxay caamilkiisi oo kalama salaha labaad jalasa waa fadhiistay zaydun zayd julusan fadhi ayuu fadhiistay julus marka waxa weeye waa masdarkii jalasa waxa ay adkeynaysaa maxay jalasa oo ficil ay adkeynaysaa هي نوع لبعض حليها المبين كي عديني لنوع عامله عامل كيس نوع أو يحي
أما سيدا ودعي مثل سيدا ضربت وحان قراعي زيدا زيد بان قراعي ضرب الأمير أميركو سيدا وحو قراعنو قراعي نوع قراعة أيو مصدر كاني وعدينيه ضرب الأمير وأنا مفعول مطلق ويه كصدحات المبين وكي عديني لعدد عامله عامل كيسة أما فعل كان كهرية ترى شير إيه ودعي مثل سيدا صاح أو قيلي الديك ديكي صيحتين لبا قيلو صيحتين ترى فعل كان ودعي أي عدينيسا وحفلينا فانتين مفعول المطلقة مروح لو قيبيا لبا قيبوت mid waxa la yiraahdaa lafdi maxaa looga jeedaa ficilkan iyo masdarka ka dambeeya dhacdada ka dambaysa xuruufta ayay iska waafaqsan yihiin mar haday xuruufta iska waafaqaana macnaha way iska waafaqsan yihiin sida jalasa wuu fadhiistay zaydun zayd juluusan fadhi juluus iyo jalasa waxay iska waafaqsan yihiin maxay حروفتي بس كوافقسين مركا مصدر كاسوح نقنيا أما مفعول مطلق كاسوح نقنيا لفظي أو مفعول مطلقي يفعلكي أي واحد كوافقين محي حروفتي مرنا وحيها معنوي وحلوقة شيء ده فعلكي صالحا يا مفعول المطلقي وحا أي كوافقيان لنك معناه لنك حروفتنا way ku kala duwanaanayaan tusaale ahaan qaama waa istaagay zaydun zayd waa istaagay wuquufan istaagid hadduu fiirso wuquuf waa istaag macnahaan waana masdar waa dhacdo qaamana waa istaag xaggii macnaha waa iskaga mid masdarkii iyo ficilkii haye laakiin maxay ku kala duwan yihiin xaggii erayada ayay ku kala duwan yihiinoo تنا وقام مصدر كنا وحكيمي وقف وتفهمت من ملينيه وجلس أو فريستي محمد قعودا فردي أي فريست جلس يقعودا حكي معناها واس كتمد هي هذا محي كل دوينين وحي كل دوين لكن يريده marka ficilka iyo masdarkani hadii ay ku kala duwanaadaan dhanka xuruufta لكن أي سكجا ميت كنقدان لك معناها مفعول مطلق قاسم حنا قنيا معنوي ينقسم وحو قيب سما المفعول مفعول كالمطلق الذي داي إلى قسمين لبا قيبات لفظي من لفظ اللون نسبي وذلك كاسي إن وافق وهدو وافق المصدر مصدر كان ضمب لفظ فعله فعل كيسا كهر يا لفظ كيسا يا حروف كيسا يا دواء كيسا هدو وافقه حلورنا يا لفظي مثل سيدا جلس وافريستي زيد جلوسا فردي جلوس أو فرديه وحي وافق سنتهاي فعلك لفظ كيسي يا دواء كيسي marka hadii lafdiga iska waafaqaana de macna way iska waafaqayaan wad fahmaysaa adigu aqli waad leedahay kalabaad waxa la macnawiyun min macnaha loo nisbeeyay wadaalika kaasi idha waafaqa wa marku waafaqo almasdaru masdarku macna ficilkiisa macnihiisa faqat oo kaliya xaqi macnuhum buu ka waafaqay laakiin xaqi xuruufta iyo dhawaaqa way kala duwan yihiin mithlu sida qaama waa istaagay zaydun zayd wuqufan istaagid wuquf waa masdarki ama mafcuul mutlaqi ficilki oo qaama ah حاجة معناها هو إسكاجمد لكن وحي كلا دوينهن حاجة حروفته أو وقوفا وحي كتمي وقفا وجلس وفريستي محمد قعودا فردي قعودا وفردي أو جلس وحي إسكاجمديهن لكن معناها لكن وحي كلا دوينهن لكن الفاظ أي الواقع أديات بدو ما سنتي وفانتي من ملاينية هدي أدي رفهم ويدنا وتكون عشان دونتا إن شاء الله أرضي إذا قرح لبضن يعض على حاجة صغيرة والله يلسكي والله بقى يبط القسم الأول قيب تكوبات وحكولي يبين واحد عديسا نوع المفعول المطلق مفعول المطلق نوع ويحي صدح قيبات بين صوريقاني صدح قيبات كو يحي بشيقسا ضربته وحان قراعي زيد ضربتين لبا قراع طلبان صراخة وقيلي الطفل علمه يرى صراخا قيرو كصدحات جلس وفريستي الطالب أرضيقي جلسة العلماء قاب فردقة علماء أيو فريست قيب طلبات أكمل واحد ما يسرتها ما يلي وحان صوصعده تكوبات إذا وافق هدو وافقه المصدر مصدرك لفظ فعله فعل كيس لفظ كيس حروف تيس يدواقيس فهو كاسه مفعول مطلق محل هذا قرنيا لبا إذا وافق المصدر مصدرك هدو وافقه معنى فعله فعل كيس معنيهس وحق معناه كلياس كمن نقدان دواقي ريدنا أنا كمن نقن فهو كاسه
adaa garan doona aad iyo aad baad mahadsantihiin si wanaagsan ayaad u dhegaysanayseen casharka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan idin salaamaya dhammaan ardaydayda sharafta badan iyo axbaabtayda waa idinka